bal haddana waa toddobaadkan iyo falanqaynta ciyaaraha waxaynu ku eegi doonaa oo aan ku qaadaa dhigaynaa horyaalada Yurub oo markii ugu horeysay taariikhda labada ciyaaroodba ay ku soo baxeen kooxo Ingiriis oo iska soo horjeedaan. Maxamed Axmed Deysana ayaa stuudiyaha igula sugan. waxaan ka bilaabaynaa Chelsea iyo Arsenal. maxaa la filayaa? runtii waxaa la filayaa ciyaar aad u xiiso badan sababtoo waxay ku ciyaarayaan wadan kale ayay ku ciyaarayaan oo magaalo kale isla tagayaan taageerayaashan xaggii wada tagayaan. marka waxaan filaynaa ciyaar aad u xiiso badan inay meeshaas ay ka dhacday dhexmarto labada koox Arsenal iyo Chelsea. waan gartay marka ciyaartooda waxaad leedahay marka waxay noqon doontaa ciyaar faraha looga gubtay. kulli ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhacaysa sababtoo waxaan la soconnaa in Chelsea ay ku hanweyntaa koobka inay qaad. Chelsea ayadu way u soo baxday Champions League laakiin Arsenal ayadu may soo bixin. Arsenal ayaa culays xoog la saaraya oo 100% rabta inay badiso. laakiin anigu waxaan qabaa ciyaartaas haddii Hazard la celi waayo oo waxaan qabaa Hazard waa nin kubadaha la cararo xariftamo 2 qof 3 qof dhaafo haddii Arsenal Hazard ay celi weyso inay meeshaas guul darro la tagayso. dhanka kale ayada lafteeda uma bayaanki oo tartanka dhaliyaasha qaatay ayaa joogo oo laftiisa aad u dheeray gool dhalintana ku fiican oo dhici karto difaaca Chelsea inuu gool ka dhaliyo. Arsenal marka ayada lafteeda fursad ay haystaa. dhanka kalena macallinkooda waxa u maleysaa culays xoog inuu saariyaa saari laakiin Arsenal dhinaca difaaca ka liidata Soomaa. difaaca ay ka liidata Arsenal wayna ogtahay Chelsea in difaaca ka liid laftigooda Chelsea ciyaartooyda dhexda ka dheelayay lafta jig oo ka dhaawacmay Conte laftigiisa waxa la inuu dheelay lama laakiin wali waxay istaa ciyaartooy fiican oo Jorginho iyo Kovacic iyo Ross Barkley iyo u joogaan. marka waxa u maleysaa in Chelsea qudheeda marka waxa la gool badan ma dhaliyaan oo hadda sidii ciyaartooydii Talyaaniga kale u ciyaaraan. ma ayagu laftigooda dhibaatada haysto ma qabaan dhaliye oo Juru iyo ciyaartooyga Higuain ma dheelaan oo numberka 9aad waxa ka dheelo ciyaartooygan Hazard ayaa ka dheelo numberka 9aad oo Ben camal u dheela goolna u dhaliyaa wuuna dhigaa. waxa ma qabaabo Hazard iyo William iyo Petro hadii hore soo aadaan inay gool ka dhali karaan. laakiin Arsenal laftigooda weerar fiican ay qabtaa oo la kaseeda joogo gool dhalinta ku fiican oo isla naftigiisa ku bada dhigay. ciyaartooy waxaa jira Mkhitaryan la yiraahdo oo meesha lagu ciyaarayo darteed u cawday ayaan dhaweedo yiri wadanka iyaga iyo wadankaas baa colaad ka dhaxaysa mana tagi doona haddii uu ka maqnaado saameyn ku yeelanaysa. kulli ma tagayo oo colaadaas ajeegaysa ka dhaxayso laakiin uu maleynayo Mkhitaryan haddii uu ka maqnaado meeshaas inay dhibaato weyn ku sameynayso Arsenal ma u maleynayo oo Awobi ayaa jooga meeshaas oo dhinacaas ka dheeli karo run ahaantii waxaana qabaa inay Arsenal ay ka maaranto. waan gartay labada kooxood waanu aragnay laba koox oo Ingiriiska iyaguna Champions League taagan Liverpool iyo Tottenham yaa la isleeyahay way ugu cadcadahay. horta waxay loo maleeyaa in Liverpool waa la soconaa iyo Real Madrid markay final setting Real Madrid qaadaysa la dhahay wayna qaad haddana Liverpool iyo Tottenham Liverpool iskale oo laakiin su'aashu waxay tahay Tottenham waa naqaana Pochettino iyo kooxda oo wato iskale maxad ka wadaa macnaha sida la filayo ayaga sida la filayo sida la filayo Liverpool ay u badan tahay laakiin su'aashu waxay taagan tahay Tottenham laftigeeda waxa dib ugu soo noqday dhaliyahooda weyna Harry Kane waana dhalinyaro aad u fiican waana weerar badan yihiin mana istaagayaan oo ma u maleynayo Pochettino inuu joogsanayo oo leedahay. waan gartay dhinaca Liverpool Harry Kane waan fahanay laakiin Liverpool yaa u tartami yaa soo safan doona leedahay. Liverpool waxay u egtahay inay yimaadeen Firmino oo soo noqday oo ciyaaraya ciyaartaas. Firmino hadduu yimaado waxa u maleysaa weerarkooda aad inuu fiican qaasatan isku xirka oo Saïd Mane iyo Mohamed Salah isku xirkooda aad ugu fiican yahay oo hore iyo gadaal inuu aad isku xir ay u badan tahay. difaacoodana waa la soconaa Van Dijk iyo Matip inay joogaan labada dhinacna waxa ka socod doono Robinson iyo waxa ka socod doono iyo ciyaartooyinka wiilkan kale Alexander Arnold. dhanka kalena Tottenham laftigooda ma liidato oo Dele Alli joogo weerarka oo waxa joogo laftigiisa Hun Min ayaa joogo oo waxa u maleysaa aad inay u fiican yihiin laftigiisa Moussa Sissoko laftigiisa dib ayuu u soo noqday oo waxa u maleysaa dhexda aad inuu maalmahan sanadahan dambe aad u fiican. mid kalena waxaan qabaa Sissoko dhexda inuu aad ugu adag yahay oo dhexda adagta in lagu maro. Erikson laftigiisa waa la soconaa Real Madrid ayaa rabto oo kubadaha oo dhigay iyo kubadaha oo dhalnay sidoo u qaybinay inaysan wax sahlan aysan ahayn. Ross iyo Drybana labada dhinac ay ka socdaan oo kubada ay marka waxaan filaynaa ciyaar aad u xiiso badan in labada koox ay soo bandhigi doonaan oo weerar ku dhisan. Tottenham halkan oo kale wali ma soo gaarin baa la leeyahay waxaan hore u maadaysan baran. runtii xaqiiqadii waxay tahay Pochettino in la siiyo way mudnaan u leeyahay sababtoo sanadkan
hal ciyaartoy soo ma gadan asoon hal ciyaartoy soo gadan ayuu meeshan soo gaaray oo finalka yimid Champions League jooga Sportiva ay dhisteen mar kulley mudaan weyn ayuu la Pochettino labadoodana laba macalin koob qaaday ma aha waan gartay aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo ka faaloonayay ciyaarahaasi qaaradda Yurub oo 4 koox oo Ingiriis ah isku soo hareen inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii caawa ee caalamka aad ku mahadsantihiin daawashadiina nabadgelyo